dunida aynu saaranahay kala duwan dadkeeda iyo dabcigooduba waxaadna ku arki kartaa ama aad maqli kartaa inta aad guudkeeda saaran tahay waxaadan horay u arag ama aadanba u maqal daawade ma isleedahay in dunida lagu arki karo haweeney nuujisa waxaan bini aadan ahayn tusaale bisad daanyeer ri iyo wixii la mid ah माँ मर गई बछड़ी एक ही समान है भाई कोई अंतर को दिन में भाई 3-4 kadib markii ay baqtida hooyadeed waxaan bilaabay in aan gacmahayga ugu dhiijiyo caanaha naaskayga si aan u baro in ay jaqdo naaskayga dabadeedna waxaan bilaabay in aan nuujiyo naaskayga waxa ayna maalintii nuugtaa 3 ilaa 4 mar दिन में भाई 3-4 और 5-6 बार पाते weyshan waxa ay nolosheeda la qabsatay agjooga iyo jaqida haweeneydan u dhalatay dalka India waxa ay jaqdaan naaskeeda amaba waxa ay malafsataa faraheeda oo ay kaga maarantaa cunista cawska tuulada ay ku nooshahay dadkeedu waa ay kula yaabeen dhaqanka ay leedahay haweeneydan ee ah naas nuujinta weyshan inaga oo og in loodu carabkeedu leeyahay xanaf badan waa markii ugu horeysay oo aan ku aragno tuuladan dhacdadan oo kale waxa ay nuujisaa oo ay ku quudisaa weyshan naasaheeda marna gacmaheeda ayay u gelisaa afka kamana harto isla dalka India waxa ku nool haweeney kale oo nuujisa deero iyana hooyadeed baqtiday waxa ayna u qaybisaa naasaheeda wiil ay dhashay iyo deerada waxa ayna wada nuujisaa deerada iyo wiilkeeda hal mar sida laba mataana ah waxa mucjiso ah sida ay ugu aamintay inay nuujiso waxaan bini aadan ahayn iyada oo ay xataa suurtagal tahay in ay qaniyo u geysato ogow labadani haweeney oo aynu soo aragnay waxa ay u dhasheen dalka India iyada oo lagu tiriyo dalka India inuu yahay dal ay ku nool yihiin dadka ugu beerka jilicsan ee dunida ma ahan oo kaliya haweenka nuujiya waxaan bini aadan ahayn haweenka Hindida oo qura balse waxa jira haween kale oo iyagana ku nool dunida isla markaasina nuujiya waxaan bini aadan ahayn haweeneydan waxa ay ka mid tahay haweenka nuujiya xayawaanka waxa ayna nuujisaa sida muuqaalka aad ku aragtaan bisad oo aan ognahay ilkaha ay leedahay sida ay u samaysan yihiin ma ahan been iyo indha sarcaad balse waa wax dhacay oo ay haddaba indhahaagu qabanayaan bisadan ma aha mid aad u yar wayna ka gudubtay xilligii ay hooyadeed naaska ka nuugi lahayd balse waxaa xilligan nuujisa bisada haweeney u dhalatay dalka Faransa waxa ayna nuujinta naaskani ku bilowday iyada oo yar dabcan waa markii ay dhashay hooyadeed marka ay bisadu dareento caana yari waa ay gudlisaa oo waxa ay gacmaha ku riixriixdaa naaska si uu caana ugu yeesho kaligeed ma nuujisa bisada ee haweeneydan ayaa iyana nuujisa bisada waxa ayna indhahaagu qabanayaan bisad yar oo iyana jaqaysa naaska haweeneydan kale Soomaali ayaa horay ugu mahmahday nin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban